بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبادة جنال كينا قعمة فرن قلبي صافية ميلو البجوكتان وإذين سلام يا سومالي وين مالي ونكسن. waxaan jeclaystay inaan kasoo hadlo ama idinkaga sheekeeyo kusoo laabashadeedii Soomaaliya ama Muqdisho kadib markii aan muddo dheer aan ka maqnaa. alxamdulillaah, horta ilaahay ayaa mahadle ii suurtageliyey inaan mar labaad aan imaado wadankeygii hooyo, ehelkeygii, asxaabteydii, walaalahay kulli aan la kulmo, familkeygii. alxamdulillaah, ilaahay ayaa mahad u sugnaatay. soo laabashadeedii markii aan ka tagayay iyo hadda farqi weyn ayaa u dhaxeeya, isbedelka ka dhacay Soomaaliya maasha Allah tabaaraka Allah, khaasatan Muqdisho. aniga Muqdisho aan joogaa alxamdulillaah rabbil caalamiin. isbedel aad u weyn oo markii laga hadlayo dhinaca positive-ka yani qofka markuu banaanka joogo, ani markaan banaanka joogay wixii aan ka aaminsanaa iyo waxa isbedelay markaan gudihiisa aan imaado wadankii. yani maasha Allah tabaaraka Allah, qofka caadiga ah maxaa la aan siyaasad shaqo ku lahayn, aan labada dhinac waxba aan shaqo ku lahayn Soomaaliya, waxa waa si nabad ah oo xoriyad ayaad ugu noolaan kartaa ama Muqdisho meeshaad rabtaa tagi kartaa. cid ku taqaana ama cid wax ku dhimaysa ama cid ku dhibaateynaysa haba yaraatee ma lahan haddii aysan waxba kaala dhexeynin siyaasadda. sida anigoo kaleente, aniga siyaasad shaqo kuma lihi, marka meeshaan raba tagi karaa, meeshaan rabana waa mari karaa alxamdulillaah. waxyaabaha quruxda badan ku arkay wadanka dhaqaalihii oo soo kobcay maasha Allah tabaaraka Allah. dhaqaalihii oo soo kobcay wadanka markii aan ka tagayay fursadaha shaqada aad ayay u yaraayeen. hadeer waxa aad u badan fursadaha shaqada ay aad u badan. haddii qofkii xataa wax yar heesto yani waa ku dhiiran karaa inuu wax uun kasoo bilaabo, laakiin waagii hore ma aysan jirin fursado shaqo, ma jirin. dhaqdhaqaaqa aad ayuu u yaraa, dhaqaalaha aad ayuu u yaraa. waxa aad u batay maasha Allah, yani dhaqaalihii dadka oo maxay ahayd businesski aad u batay oo sare kacayo. magaaladii qurux ayay noqotay. meelaha qaar maasha Allah tabaaraka Allah ma isdhehaysid inaad Soomaaliya joogtid oo kaleente. haddii ay muddo kuugu dambeysay yani waa la yaabaysaa maasha Allah. ilaahay noo siyaadiyo horumarka dhinaca positive-kan ka hadleyna, anaga waxay negative ma ka hadleyno. kuley way jiraan waxyaabo negative laakiin ani hadda muddo badan ma joogo oo ma arkin weli. yani waxyaabo yar yar way jiraan laakiin wax weyn oo hadeer weli ma arkin. Soomaha maba joogo wax badan. marka maxaan kale intoon ku arkay wadanka oo aad aniga ii cajabiyey waxay tahay habeenkii waqtiga doonta inaad socon kartid. Muqdisho dhinaca nabadda aad ayay u horumartay. waqtiga doontidaad socon kartaa, qof ayadoosan kula hadleynin, waqtiga doontida ayaa soo geli kartaa gurigaaga maasha Allah tabaaraka Allah. taasna ma jirin aniga waqtiga iigu dambeysay. habeenkii waxaa cabsiya jirtay waqtiga dambe oo kale ma la socon jirin. hadda maasha Allah tabaaraka Allah, waqtiga doontidaad socon kartaa, waqtiga doontidaad aad imaan kartaa gurigaaga maasha Allah. waxyaabaha dhinacaas waxa waa dhinacii oo positive ku ah aniga Soomaaliya ama Muqdisho aan aad u jeclaystay. waxa waa nidaam jiro maasha Allah tabaaraka Allah. intii aan soo maray wax yar oo kooban, weli magaalada aad uma dhex marin, laakiin intii aan ka arkay wax aad u qurux badan waay. dhinaca negative-ka waxa waa negative badanaa jira isagan oo maxay ahayd oo yar yar aan laga aamusi karin oo indhaha laga qarsan karinaa jirto. oo dhinacii akhlaaqiyaadkii oo sii dhumaayo dadkii dhallinyaradoo kale markaa suuqa aadidoo kaleente. akhlaaqiyaadkii dadka say u hadlayaan waxyaabo badan oo igu cusub oo aniga naftirkeyga aan la yaabay. dadkii jiro maasha Allah. ilaahay xaqa Allah tusi maasha Allah ma dheheen. ilaahay xaqa Allah tusi, ilaahay soo hanuuniyo. yani akhlaaqiyaadkii dhumay. qof weyn iyo qof yar markaa suuqa aadi dadka yani dad oo waxa waaye inta badan aan arkay akhlaaqdii iyo waxa waaye dhaqankii quruxda badnaa iyo wixii say u hadlayaan, hadalada afkooda kasoo baxaayo wax qurux badan oo la maqli karo ma ahan. waa yaabaysa adiga naftirkaaga, laakiin dadkii waxa waa u barteen ilaahay xaqaa tusi ma qurux badna. afkaaga wax wanaagsanaa la baraa, wax qurux badanaa lagu hadlaa. waa inkastoo aan arkay dad wanaagsan oo maasha Allah, kuligooda ma ahan dadka qaar waaye, laakiin majority-ga laga hadlaya dad wanaagsan oo waxaan arkay iyagana maasha Allah oo ixtiraam leh, oo qurux badan, oo shaqaysanaya, oo say dadka ula dhaqmayaan. is leedahay dadkan waxay ka imaadeen caalam kaleente oo ixtiraamka waa lagu qasbay. qofna aysan ku qasbin, laakiin ayaga muxtarimiin, ayaga isku qasbay inay dadka ixtiraamaan. ayaga ilaahay saas u sameeyey.
maasha allah tabaaraka allah. ilaahay ha baday dadkaas oo kaleento. waxyaabo kaleento oo waxaa aad usoo batay dadka dhaqaalihii dhinacna wuu kacayaa. waxaa kaloo aad usoo batay dabaqadihii hooseeyey oo hoosta ahaay oo maxaa la dhahaa oo aan waxba haysan ayagan aad ayay usoo bateen. waxaa waaye dadkii waxaa aad u batay dadka dawarsada aad u batay aad ayay u bateen. waxaad arkaysaa gabdho yaryar oo dawarsanaay aaday u bateen. ma aqaano aad saas ma ahaan jirin waagii aniga wadankii igu dambeysay. dadka dawarsada aad ayay u bateen oo maxay ahayd ay ka muuqato diifta iyo duruufta. waxaa waaye aaday u bateen aad ayay u bateen dadka. horta dabaqado waxaa waaye maasha allah way horumareen inta badan. dabaqado waxay noqdeen oo sare sare. kuwa kale waxaa jira ayagana normaal oo nolol maalmeedkooda oo ku aado dabaqadaha dadka isku mid maahan oo asturan. muhiimada dunida waxaa waa inaad asturnaata mar walba. waxaa lagu duceystaa ilaahay adduun iyo aakhirabo ha nagu asturo. wax ugu wanaagsan asturnaantu waay. ilaahayna asturo mar walba iyo meel walba joogno. waxaa soo batay marka dabaqadahaas oo noloshooda ku aado okay waaye oo iska asturan. yacni kuwa waxaa jira ayagana oo duruuf hoose jirta laakiin oo maxay ahayd xishood iyo aan dhihi karin oo dadka aan waxba weydiisaneyn laakiin guryahooda ku asturan ayagana way jiraan. laakiin waxaa aad u batay dadkii banaanka maanta oo dhan gacanta taagaya ma aqaano. ilaahay ka bixiyo duruufta. kuwa aad u duruufeysana soo bateen oo aad hoose because nolosha qaali waayo. Soomaaliya dhinacyo badan ee nolosha qaali ka tahay. dadkaas oo kale yani oo duruufta ay haysato aaday u adag tahay nolosha Soomaaliya. marka ilaahay ka bixiyo. ilaahay ka bixiyo duruufta. waxaana wanaagsan qof walba oo ehelkiisa hadii oo Soomaali oo joogo oo duruufeysan yahay ama familkaaga uu yahay walaalka ha ahaado walaasha ha ahaato wax ku dhow ehelkaaga ha ahaado saaxiibaad leedahay ahaado qof adiga aad jeceshahay oodan dhibaatadiisa aadan fiirin karin oo Soomaali ka joogo kale ha usoo dirin biil ha usoo dirin usoo dir wax uu ku shaqeysto oo noloshiisa ku maareeyo. يعني يو أهان قفكي مت أديك كسجاي أو قعنت كوسو تاجو هدي أدو حسين جرت وحي سهل مرسي وحفي عن سيها وحكو زميستها كوش قيستو ساسا قرح بدن سيم حي ظروفها لو دبرجوي فخري هذا أصابتي إنكستو دينا ماشي أنا كده كنا سوماليا أم مختشو ما شاء الله تبارك الله أي إسكتها ميل نورمال أمريكا لاميدة عاد مرتو أتنيه الصومالي مجوكتيت لكن جودها أمريكا وشيت حافظه وحجوجه dad duruufeysan oo indhaha aan laga qabsan karin oo maxay ahaatay qaarkood yani ma dabarsan karaan waa xishoonayaan iimaankooda usugan maasha Allah tabaarakallah ilaahay ka bixiyo ilaahay umadiisa u waasiciyo irsaaqadan ilaahay nagu macariiriyo marka waxaan jecleystay warbixintan yar oo kooban warbixino kale waa idinka soo wadaali ana wali ma baranin magaaladii wali ma dhexgalin magaalada ma ah inaan barnaa waa aqaana waa meeshan ku dhashay oo kusoo koray kusoo barbaaray oo noloshayda dhan aan kusoo dhameystay in badan oo qurux badan iyo in badan oo xun oo aad iyo xanuujisay yani Muqdisho waxa waaye meel la ibaraay ma ma sha Allah tabaarakallah marka video xiga ayaan idinkaga soo diyaarin doonaa warbixin dhameystiran oo qurux badan oo faahfaahsan biidnillaahi kariim waa ku mahadsantahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay video xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.